والله Soomaalida waa dad diinta iireebista xumaanta wanaaga maxaa ku dhacay ninkii siday isku dubeeyaan sariirta markay seexdaan naasaha ayadoo naagta balaqka ah oo banaanka u yaal ninkii oo feeraha qaawan leef mar walba soo geli jiray aakhirkiina damcay cunugta ay dhaleen oo ka sheekaynaya mustaqbalka sida lagu raaxeynayo cunugtooda waxbaa ku dhacay Soomaalida wacdara ayay dhigtay leef ayaa daahir calasoo uu soo geliyay laakiin meeshaas ninkay gabadhaba cashir culus ayaa ka raacay kadib markii lagu kacay muuqaalka la garay shargarayna waxaana qof walbo Canada ku nool waajib ku ah badbaadinta caruurtaasi Soomaaliyeed ay damceen waalidkii uu dhalay waana qasab waxa hadda qeylada iyo hunta ka keenaya waa cabsi ay ka cabsanayaan in lagu dacweeyo qolada caruurta ee Canada qof walbo damiir leh oo Soomaali ah wuxuu raba ha noqdo waa inuu ku dacweeyaa dawladda Canada jooga dhammaantiina muuqaalka shargareeya gaarsiiyana Soomaalida Canada ku nool ila daawo waxa soo socda iyo wacdarada lagu dhigay xanaagtii xabadka soo feerin jirtay naaska dawadeedna uu soo agfidhiisan jiray mid ay ku sheegaysay inay isqabaan laakiin qamniin iyo xalaali islaamnimo ma aha waxa ay ku dhaqmayaan waxay ka sheekaynayaan habeenkii siday isku dubeeyeen asoo iska dhigaya ninka inuu qatar yahay wax dubeen kara wuxuu leeyahay nimanka kala ansaxaya asigii ayaa waxaad moodaa in tiibisha ay ku dhacday siduu u qalalan yahay inuusan waxba isku haynin eber uu yahayna wala dareemaya markuu hadlayo ninka ragga ah ee gogosha si fiican wax ugu dubeen karo inuu islaantiisa ama naag uu qabo wuxuu ku sheegayo inuu meel soo fadhiisiyo naasaheeda ma soo qaabsato ninkana kuma tiraahdo guskaaga siduu u egyahay sidee u kaxsataa sidee wax u dubaysaa ma tiraahdo waa wax naclad ay ku dhacday aayado ayuu soo qaadanaya wuxuuna rabaa dadka inuu ku jahwareeriyo mashruuca ay ka soo qaateen kuwa doonaya Soomaaliya ummadeeda inay fasahaadiso ayuu ku dhax qarinaya ilaahay wuxuu leeyahay wal fitnatu ashaddu min al qatl وعسوك الإلهي وليها والفتنة أكبر من القتل دلك أوقف لدرائي أمد الله في النية وحادرا أمد الله في النية وحاسوين أمد الله في النية وحي ولان وفنه وكوك شيء كان يسيدي وناقني من عن قبيل أيضا ننقى شيئا يسا أكبر إياه كشيء كان يسا سيدا رسكو وصو إيقوسك والدين يسا ننك سيدو وإيجاي وعدوان الإسلامين دل ديوس فيرق بمر لأنا ماشي يوفر يا وحمة رأى حدا وانين اوغلانا يا حتى ان ناكتيسا لرجل موضوع سو جوغا مر هدو اوغلاداي ان من كلا اي ويديان سيده wax loo cuno sida ay ayada loo cuno ay ninka soo u cuni kara naagtiisa deeb la weydiinayo wax walba uu ogolaanaya bal ila daawo waxa qabsaday iyo casirka Soomaalida ay u dhigeen ilaah baan kugu dhaashay daawo waxaana daawanaysa dad aad u tiro badan kulli hal qof oo taageeray ma jirto dhammaan ummadoo dhan waxay wadaan way ka soo horjeesteen aragtidaadana la wadaag الحمد لله Soomaalida wali dameerkooda xagga diinta waa dad nool oo diintooda ku dhagan ila daawo iska daayaan meel la talo un beegata ama daa ama ku socdo آيات إنا كنت واي أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش مركا أرجو وحاول